وإذا سلامي يا إخواني وأخواتي. waxaan rabaa wax yar inaan tilmaamo oon ka hadlo rag ama dad ka mid ah dowladda Soomaaliya ku jira oo runtii sheegtana kuna jooga meeshaas mushaar ku qaata dowladnimada Soomaaliya ku matala midnimo iyo Soomaalinimo, laakiin waxa ay sheegayaan oo meesha ku yimaadeen ama xilalkan ku qabteen aysan ahayn taas ay tahay inay meesha u joogaan inay kasoo horjeedaan jeclayn Soomaalinimada, midnimada, kana shaqaynayaan si hadal iyo ficil labadaba. wax badan ayaan ka aamusnayn, laakiin sida muuqata oo ficiladooda iyo habdhaqankooda ka muuqata raggaas waxaad arkaysaa waxa ay sheeganayaan oo meesha u joogaan wax kasoo horjeeda inay sameynayaan. dadka Soomaaliyeed ma ahan dad aan maan lahayn ama caqligu ka maqan yahay ama aan wax garad ku jirin, laakiin wax walba sida wax loo xeerinayo ayaa maaragtay dhibaatadu ay meesheedii email kasii daran maalin walba tegaysa. waxaa la yiri runta rag waa kugu nacaan, laakiin Rabbi ayaa kugu jecel. runta ma jecla dadku in loo sheego. markaad wax ka hadasho, qof walba oo run aad sheegto, qofka aad runka iyo xaqa ku caddayso wuxuu ku leeyahay reer hebel baad ujeedaa ama reer qabiil hebel ayaad ujeedaa ayaa laga wadaa. meesha qabiil iyo reer hebel ma taagna, qof ujeedana reer hebel ma jiro. laakiin runta marka qofku ka hadlayo, hadday adiga runtii ku qabato, marmarsiyo inaad yeesho ama meel kala saarto ma aha. munaafaqayntana waa wax laga fiican yahay. qofku inuu wuxuu rabo ama wuxuu yahay ama wuxuu doonayo caddaysto oo wax laga maarmaan. laakiin inaad waxa aad sheegayso oo lacagta ku qaadanayso oo mushaar ku qaadanayso wax kasoo horjeeda aad sameynayso waa dhibaato. ragga saddex aan sheegayo ka hadlayo waa kuwa badan oo runtii aan ka sheegi karo magacyadooda. ninka Cabdi Xaashi la yiraahdo iyo Saalaxna la yiraahdo asna oo ra'iisul wasaaraha dowladda, iyo ku dar wasiirkii hore ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore xataa, inkastoo iska aamusan yahay laakiin aad arkayso wuxuu la aamusan yahay. dee aamusnaantuna waa raalli ahaanshadeeda leedahay. maareeye nin la yiraahdo, adiga rag noocaasa ama ragga kasoo baarlamaanka ama dowladda kasoo gala dhinaca waqooyiga ayay u badan yihiin. waxaan ka wadaa markaan ujeedada aan ula jeeda ay tahay waxaad arkaysaa raggaas markii dagaalada ay Sool iyo SSC ka dhacayeen way ka aamusnaayeen, kama hadlin, ma tegin meesha, ma dhexdhexaadin dadkii, wanaag kama shaqayn, dadki iskuma soo dumin, dowladnimadii kama shaqaynin, labada dhinac lama hadlin, ma tegin, iskuma hushaarin. laakiin meesha waxaad arkaysay in ay dagaalka dhinac uga jireen oo dagaalka ay dhinac uga jireen oo ayaad arkaysay ama ay dhinaca la jireen. sababta waxaa la yiri wain daa'ifataani min almu'miniina naqtartaluu fa aslixuu baynahuma. dadka walaalaha hadday isdagaalaan waxaa la yiri dhexdooda wanaag ka shaqaysiiya. waxay ahayd maadaama ay dowladdii ka tirsan yihiin, baarlamaankay ku jiraan, dowladdii ay yihiin, dadkana ay matalaan sida ay sheeganayaan,
inay dhex galaan oo nabadda ka shaqeeyaan oo isku keenaan oo dagaalka joojiyaan ay ahayd, labada dhinacna ay la hadlaan. Ma ay samaynin oo meeshii ayay maaragtay uga aamuseen. Weliba sida aan arkaynay dagaalka ayay raalli ka ahaayeen intooda badan. Midda kale oo xigta, meeshii kolley lagu kala bax nidaam ayaa ka jira, dadkii nidaam ayaa ka jira meeshii. Adiga qolo walba nidaam ayay haysataa. waxaad marka arkaysaa waxyaalaha qolo waxay u dagaalamaysay go'itaan, qolona waxay u dagaalamaysay Soomaalinimo iyo midnimo arabna. maadaama iyaga ay nimankan ku andacoodaan meeshan ay u joogaan inay u joogaan midnimadii Soomaaliya, inay baarlamaanka dowladda ugu jiraan, waxay ahayd almiino inay taageeraan, ka shaqeeyaan, la shaqeeyaan kuwa doonaya midnimada. laakiin ma aysan sameynina sida muuqata waxay sameeyeen kuwii midnimada kasoo horjeeday oo Soomaalinimada kasoo horjeeday, dhinacii Soomaalinimada iyo midnimada kasoo horjeeday oo dhahay dalka waa ka go'aynaa, inay la jireen oo la shaqeynayeen, ayaga oo weliba dalkii dowladdii ka tirsan oo midnimada u jooga oo mushaar u qaata oo dowladdii ka tirsan. haddana saasay tahay, dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed waa loo jeeda, laakiin waa la iska aamusnaa. waxun baa la xeerinayay. wax maanta dhan haddii la xeeriyo sharci darrana, dee dhibaatadu adiga ay salka ku fadhiisanaysaa runtii. meesha waxaa arkaysaa samirka dadka Soomaaliyeed meesha uu marayo. marka waxaad u jeedaa marka oo meesha kaaga soo baxaya in raggan aysan meesha midnimo u joogin, laakiin sida dhaqankooda iyo afkooda kasoo baxaysa, sababtoo ah waxa uurka ku jira ayaa afkooda kasoo baxaya. ay ku andacoonayaan, maalin ku qaylinayaan inay la shaqeynayaan dadkii ama kooxdii kala goynta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ka shaqeynaysay, inay ku aragti yihiin oo la shaqeynayaan, oo laga yaabo inay wax badan iyo siro badan u gudbinayaan, oo dowladda iyagoo lagu aaminay oo madaxdii dalkii Soomaaliyeed ku jira, waraastii meel ugu sarreeyay ku jira fadhiya, inay la jiraan oo la shaqeynayaan dadkii gooni ah iyo kala goynta Soomaaliya ka shaqeynayay. marka miyaysan meesha ka muuqan inay sir u gudbinayaan, inay dadkii maaragtay waxyaalo badan oo dowladda arrimaheeda ku saabsan iyo la rabay in laga qariyo dadka gooni-goosadka ama kala goynta dalka Soomaaliya ka shaqeynaya, maadaama ay la jiraan dowladdiina ka tirsan yihiin. meesha waxaa kaaga soo baxaysa dhibaato weyn. marka arrintaasuna runtii waxaa caddaatay oo qofka caqliga leh, qofka garaadka saliimka leh, waxa nimankan ay meesha u joogaan inay tahay dhowr waxyaalood. kow, inay keliya dantooda iyo mushaar iyo lacag ku qaataan, inayba meesha u joogaanba kala geynta Soomaaliyeed, oo ay yihiin dad sida ku yimid oo ku talagal u jooga meesha inay yihiin, oo aysan ahayn dad isku keenid iyo midnimo iyo ka shaqeynaya dalkii inuu isku imaado. waxyaalaha maanta shaac bixiyey oo wixii hore oo dhan xagga ku tuuray oo loo jeeday oo iska caddaay, laakiin la qarqarinayay. shalay oo dowladdii ay ka tirsanaayeen ra-iisul wasaarahoodii maaragtay iyo baarlamaankoodii iyo wixii dowladdii ay ka tirsanaayeen oo dhan inta tagtay gobolladii ay sheeganayeen, ay dhahayeen marka midnimada Soomaaliya iyo gobollada waqooyi ayaan matalaan meesha u joognaa, dowladdii tagtay ay ka hareen oo gooni uga hareen, oo weliba ka haritaan iska daaya ay xataa ka hadleen. meeshaas ayaa waxaa soo muuqanaysa, soo caddaanaysa wixii awal la qarqarinayay oo iska cad oo loo jeedo oo banaanka inaysan raalli ka ahayn in Soomaaliya midowdo, inay isku imaato. waxa ay sheeganayeen gobolan matalan ay dhahaysana ay meesha been tahay ayaa ku soo caddaynaysa. marka waxaan maleynayaa in hurdada laga kaco, dadka dowladda Soomaaliyeedna ay garaasato dadka noocaas oo kala. waa idin salaamay, khayr ay idin rajeynaa insha Allahu tacaala.